goortii aad dareento inaadan sii socon karin, goortii aad dareento in qofna uusan ku fahmayn, goortii dhibaato ku haysata aad u weyso xal, ogow Allah ayaa haya jawaabahaaga oo dhan. ma arki kartid wadada kaa horeysa adiga, balse Allah ayaa ku tusi kara. ma garan kartid adiga qiimahaaga, balse Allah ayaa garanaya adiga qiimahaaga. xusuuso hadalkii quruxda badnaa uu rabbigaaga ku yiri quraankiisa kariimka ah. tii alle ka baqa wuxuu u furaa faraj, wuxuuna ka irsaaqaa meel uusan ka filanayn. ruuxii Allah tala saartana wuu ku filan yahay. alla amarkiisa wuu fuliyaa, wax walbana wuxuu u yeelay waqti sugan. dhaqtar ayaa mar yiri daawada ugu wanaagsan ee dadka lagu daaweeyo waa jacaylka. qof ayaa weydiiyay dhaqtarkii, ka waran haddii uusan shaqayn jacaylka? dhaqtarkii intuu dhoola cadeeyay ayuu ku yiri badso dooska isticmaalka daawada. wiil ayaa hooyadiis weydiiyay, hooyo sidee baan ku heli karaa xaas wanaagsan? hooyadii ayaa ugu jawaabtay wiilkeedii, ha ka walwalin helitaanka xaas wanaagsan, balse xoogga saar adigu inaad noqoto nin wanaagsan. qof aad caawisay xilli uu aad ugu baahnaa caawinta, ama aad ka fududaysay kurba haysatay, farxaddaas waxaa uga naxdin badan inaad sheegto ama aad mar kasta xusuusiso abaalkii aad u gashay. iska hilmaan wixii wanaag ah oo aad u samayso dadka, sababtoo ah noloshu waa in la isku caawiyo alla dartiis. tagtadaadii wax ka baro, joogtadaadana ku noolow, timaadadaadana khayr niyeyso. muhiimaddu waxay tahay inaadan nolosha ka rajo dhigin. haddii aadan awoodin inaad ku hadasho hadal xaq ah, ha u sacbatumin xumaanta iyo gardarada. haddii aadan helin ruux laabta xumaan iyo xiqdi kugu haya, ogow inaad tahay ruux fashilmay. sababtoo ah qofka wanaagga sameeya waa qof leh dad isaga liddi ku ah noloshiisa. goortii qof dhibkiisa kaaga sheekeeyo, micnaheedu ma ahan qofkaasi inuu kuu calaacalayo, ee micnaheedu waa in uu ku aaminay. waxa ugu yar oo aad u samayn kartana waa inaadan sheekadiisa cidna la wadaagin. boqor kasta iyo madaxweyne kasta mar bay ahaayeen ilmo yar oo ooyin badan. dhismo kasta oo u dhisan si mucjiso ah mar buu ahaa mid warqad kaliya ku sawiran. muhiimaddu ma ahan halka aad taagan tahay maanta, balse waa halka aad gaari doonto berito. noloshu ma lahan guul joogto ah, waayo adiga kuma jirtid jannada dhexdeeda. inta aad adduunka dushiisa ku nooshahay, waad ku faysaa in badan, waadna kacaysaa in ka sii badan. mar baad dareemaysaa farxad oo waqtiga ku saacidaya, marna murugo ayaa qalbigaaga daboolaysa oo kaa qaadanaysa farxaddii oo dhan. maalin waad qoslaysaa markii ay arrimahaaga kuu hagaagaan, maalinta xigtana waad xanaaqaysaa. noloshuna waa sidaas, waxaadna cimrigaaga ku qaadanaysaa inta aad nooshahay tartan adag oo kaaga baahan adkaysi iyo dhabar adeeg. marnaba ha ka quusanin nolosha inta aad neefsanayso. سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا